taageerayaal aad u badan oo ka soo jeeda beesha Abubakar Axmed ee ka tirsan beelaha gobolka Togdheer ayaa xaflad ballaaran oo xalay ku qabteen hotel Deer ee magaalada Burco ku cadeeyay inay ka soo diga rogteen xisbiga kulmiye kuna biireen xisbiga mucaaradka ay wadani. Xafladan oo ay mid ballaaran loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay dhalinyaro waxgarad cuqaal haween kuwaas oo muujiyay taageerada xooggan ee u hayaan xisbiga wadani waxaana ka mid ah hadaladoodii. xafladan waxay ku saabsan tahay hadaan nahay beelweynta Abubakar Axmed anigoo ah jiif caaqil Cabdi Salmaan Yuusuf inaan u soo diga roganay xisbiga wadani waxaanu leenahay kulmiye oo nabadgelyo xisbiga wadani baanu ka tirsanahay sidaas aan ugu ogaanaysaan waxaan leeyahay reerku ma aha reer cid u xidhan ma aha reer qof leeyahayna ma aha waa reer dimuqraadiyadda fahmay reerku markay ku goobeen xisbiga kulmiye waxay qaateen inay noqdaan xisbiga wadani waxaan leeyahay musharaxa kulmiye Muuse Biixi cid u xidhani xisbiga kulmiye ma jirto dawlad lagu gabanayaana ma jirto waa la tartamayaa waxa oran jirteen waynoo garoonka maanta waxaanu leenahay waynoo garoonka dhalinyaradana waxaan leeyahay codkiina dhibaadna loo bixin maayo hagbadna loo dhiibi maayo cid abaal idinkula gaarana ma jirto maantana way muuqanaysaa madaxweynaha Cabdiraxmaan Cirre mustaqbalka soo socda waynu yahay musharaxa ku haboon in loo doorto madaxtinimada Soomaaliland xisna waxaan leeyahay cududii aqliga garab iyo gaashaanba waanu ku garab taaganahay wadani waanu noolaynaynaa waxa soo islaaniya dhalinyaro iyo odayba isagay u taagan yihiin allaya afka dhalinyarta beesha Abubakar Axmed waxaanu saluugnay kulmiye laakiin waa la arkaa isbedelka cusub ee Orange Revolution dhalinyartinahay xisbiga wadani guul ayaan u soo heenaynaa waxaan inii wadnaa musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo buuga aad leeyni qaybiyay sita oo buugaasi la dhilgaranaysaan oo dhalinyarada u baahan oo aan ciidamada ka wadin sidoo kale waxa iyaguna xafladaasi ka hadlay xubno isugu jira cuqaal iyo waxgarad iyo dhalinyaro oo dhammaantood tilmaamay inay hiiliyahooba la garab taagan yihiin xisbiga mucaaradka ay wadani maalmihii u dambeeyay waxa magaalada Burco laga dareemayay shirar iyo kulamo hoosaadyo ka socda magaalada kuwaas oo lagu muujinayo taageerada xooggan ee xisbiga wadani ee gobolka Togdheer. Kays Axmed Digaale, Home Cable TV, Burco.